اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. اقرأ أخيا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعد في روحه إنسانا. هو تائه متخبط متذبذب متردد ولم يزل حيرانا. ابعث به روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح والأبدان. وأزل هوانا ظل يلزمنا وقل ما من لزم الهدى مانا. كن كالصحابة في اقتداء المصطفى كانوا لهامات الدنا تيجانا. نهلوا من القرآن أعذب مورد أخلاقهم كانت هي القرآن. أخلاقهم كانت هي القرآن. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان. سؤال la iska weydiinayn dalkan dabaabad Ethiopia inaan madax looga naqanin. Allahu akbar. hadday isleeyihiin Ethiopia idin gaarsiinaysa madaxnimo dabaabadada madax ku noqonaysiin iyada dalka idin qabanaysa naftiinu waxaan leenahay baan idin sheegtay Soomaaliya waa xur insha Allah xurayna ahaa doontaa mana laga adkaan doona bidillah karim. waxaan idinku daraa intaas waxa jaba waa ciidamada shacab ma jabo shacab ku tala galay inuu isdifaaca ma jabo waxa dagaalamaya maantana waa shacab bidillah karim ma aha ciidan. waxa jabi doona waa ciidanka Tigraayda bidillah karim. Allahu akbar. abeesa waxa la ruuxay tir hadaan alla eegana allaysaan dhaha hadaan aadama eegana aarsaan dhaha abeesa laga wari waxaan waxa weeye amxaaradan iyo odayaasha ulaha dhaadheer oo wata oo amxaarada soo hogaaminay iyo kuwa wuxuu ku leeyahay shir baa la fariisanaya waxaan ahaan jiray korneyl war waxaan ahaan jiray ma rabno waxa ahaan jirtay hadda maxaa tahay hadda tuug baa tahay khaa'im baa tahay amxaarkeena mid kasta wuxuu ku leeyahay waxaan ahaan jiray generaal waxaan ahaan jiray korneyl waxaan ahaan jiray goormaad ahaan jirtay hadda maxaa tahay hadda waxaan ahay dad isku dire amxaara soo hogaamiye ka soo dare miyaa u bixiseen maxaa la yidhahdaa meeshii Ethiopia maxay magaceedii ya ka soo dare jabahaad bay ka soo galayaan jabahaadka aad arkaysaa waa mididii xabashida iyo cadowga mididoodii weeye
midida ay ku ugaarsanayaan weeye oo iyagu qolo walba leh maanta magaalo walba intay istaagaan kula soo gala annagaa soo gelinay isagii baa la adoonsanaya iyo dadkiisii wuxuu kaleeyahay annagaa soo gelinay tiigada ka dhacday waad ogeydeen waxa la yiraahdo ninkii ciidanka markii uu qabsaday soo galay haye war xabashii ma haysata 40 kun oo ciidan ku jira xabashii ma haysata wadanka aan haysta nasiib xumad dhowr usbuuc ka horna wuxuu lahaa hortoola waxa xabashii wadanka uga saaraa oo soodigi lahaa ma wadanka aan haysta xabashida sheegaysa waa maxay ka timid midkii laga reeyaa xabashi uu yeeran wax kale ma qabsan karo midkii kale ku dhacda maxaa yeelay ma jirto dariiqad kale marka jabahaadka macnaheedu waxa weeye qabaa'ilka iyo dadkii Soomaalidu meel cilaa bay ku dhimanayaan waxay ku dhimanayaan midi uu jabhad sito oo isagana mididii lagu shaqaysanayo uu yahay oo ay acdaadu ay wataan weeye sida waaqaca weeye hadallada waxaan u leeyahay aniga wax haba yaraatee shaki igagama jiraan naxdina igagama jirto waaqaca dalkeena iyo dadkeena ka jira inaan si runa u cabiro aan haba yaraatee ka fakirin waxa ka ratimi doona shaqo ku balihi dadka Soomaaliya dalka Soomaaliya la yiraahdo in loo qaybiyo marka horeeto manaatiq in loo qaybso rijin in loo qaybiyo marka ugu horeysa oo aanan automatically marka horeeto laga dhiginin state kamida Ethiopia in laga dhiginin laakiin marka hore laga dhigo states in laga dhigo rijin in laga dhigo rijin walbana loo sameeyo nin governor in loo sameeyo oo ra'iisul qabiilaa oo la diiniyo in loo sameeyo goboladaas marka nimanka jooga Soomaalida ee iminka dadku ay yaqaaniin warlordsk waxa lagu qanacsi oo nin walba oo fermay oo laga qaado laga xaqiijiyay inaanu waxba ka qabanin dawladda Ethiopia inaanu waxba ka qabanin koos noolaadkeeda stage ka labaad waxa weeye in la yiraahdo all waxa weeyaan Soomaaliya under Ethiopia wayna ahaataa qayb kamida Ethiopia weeye central ku waa Ethiopia weeye ayaguna waa rijinna weeye governors marka dambe looga taliyo ardayda inay noqdaan yaa diidaya marka waxa diiday qadiyada ninkii mutacallimihi toosan ninka wadaadka ah toosan shacbiga toosan gaalo iyo muslim markay dirirayaan oo xarbi uu noqdo gaalo iyo muslim isku soo duulay hadda waxa ishkaalkooda waxa weeye dad baa waxay oranayaan amxaarada dad Soomaaliya la socda maadaama amxaarada dad Soomaaliya la socdo xarbigan xarbi fitna way Soomaali baa ku jiro diriraysa waxaynu niri haddii gaal saa'il uu soo duulay oo dad muslimiin lagu soo duulay dagaalka macnihiisu waxa weeye markii dad muslim lagu soo duulo waa jihaad way waxaynu niri waa midka aan u baahnayn in idan bal qaataba dagaalkii badar nabiga markuu galay kaleey salaatu wasalaam waxa ku jiray adeerkii Abbas baa ku jiray markii la soo qabtay Abbas wuxuu ku jiray ragii la qabtay 70 oday Quraysh la qabtay ku jiray wuxuu yiri anigu muslim baan ahaa nabigu wuxuu ugu jawaabay kaleey salaatu wasalaam haddaad muslim tahay niyada rabbiga ku saaray ama daahiruka waa naga soo isgad waa u gatay ragii isay carruurtii uu la socotay aqiil iyo wixii watay dadkii la sii daayay buu ku jiray oo isgaday hadduu ku dhintana dagaalka ninkaas oo kale muslimka oo isqarinayo gaalada ku dhex jira haddaan dilo diya xataa ma laha waqti waa muxuu ahaa la diyeyn maayo xataa waa la soomaya kala waa laga istighfaaranaya maxay anagu ma ogeyn markaan dilayno inuu muslim yahay haddaynu ognahay oo uu saa'il yahay oo uu ku jirana asaga iyo ayaga asaga horeeyo dilka murtad way waa la dilaya هذه واحدة إشكال كم موقنا يا وحوي مع هذه دبّة على صعدة سوماليا أما دونتو دلبلي أما دلك كيناي هذا كفرك قفك مركو قالوا بايو أنا مركا كفرك لقى هذا لايو كفر الأعمال وكفر الأعيان لباسا وكلا قيبينه قال هذا قفك الراعة خيار كيسانا كراعة وحي ولا لورنجري هيل يهو إياك القعلوي هيل يهو إياك القعل قدر صلاة يلو انت أبا الله نقول يا سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مركا وحا ولي إسوه اكل قعليه هيلي هو كدحيسا يا محبه ومسلمين وحي مسلم لا قفك غارسيا وقالوا باي marka waa kufru amal hadaba dadka noocaas asal bay muslim ahaan jireen ama magacooda waxa la yiraahdaa maxamed
عبد الله عمر علي يوسف مجيسي ما مقع مسلمها مقع المسلم وحاكو أمانا أولادي بحية أرجال كان دلي إلا مسلم بولغا هاي ضروري نينكي قال هذا أما دتك مجرمين تا أولياء كردك تاي إلهي أكتي سواح الله وحوكي هي مجرد والنص إلهي سبحانه وتعالى كتابك سكويا له آيات كلا القرآن إلهي سبحانه وتعالى وحكوله هي أو تاسل معنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم كو إلهي رسولك سرميهو يهود إيا النصارى أولياء كردغننا أوها تشعلاننا أوها سود ويسننا أوها كراعنا وحي وتان محايا لي إيجا أيا إسو أولياء إذن كنا عدو بأوتي حقيقة جرتوي كيني يلي وايا صوماه أيغو كترسين يا إلهي سبحانه وتعالى مرنا مسورة قلما إناد إسلامنا أهاتو قالنا آد مبدي إيسا كرة عدو بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا ليال مركلة كسر دوادا مؤتمر كأني شنية تمناد وإيسو ودقابقابيين ودمد إسكندنافيانكا وإلهي سبحانه وتعالى فضلgiisii inoo noqday sanadkii 15aad oon sidan oo kale u qabano marka dhamaan intiina wadamada kala duwan ka timi ama wadanka lagu qabanayo Sweden joogta marka la ku soo dhawaada mu'tamarkii 15aad iyo muhaadaradii labaad muhaadaradeena labaad sida aad waraaqaha ku haysataan jadwalka inoogu qoran waa muhaadaro ku saabsan baari u noqoshada waalidka waxaan inoo soo jeedinayaa Sheekh Maxamed Idris oo hore wada taqaanaan oo iga baahnayn hadda inaan taariif badan idinka siiyo oo uu deegaankiisu yahay dalka Saudi Arabia marka insha Allah taala waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Maxamed Idris muhaadaradii labaad ee mu'tamarka Sheekh Maxamed Idris falyatafadal mashkuura الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد إلهي سبحانه وتعالى وحان كبريا كلن كان عن السجنمي مؤتمر كان سند لها مسجد كان بركي سنة عن السجنمي إنه إلهي سبحانه وتعالى نوغدغو كلن بركيسن وإلهي نحريستيسا يا سكينديسا إلهي سبحانه وتعالى وكسو دجيو وحان إلهي كبريا إنه عربكي قلبي كسو كلمة حقه صوابك إلهينا سبحانه وتعالى قلبي يديني يدقيه نبا أفره نغانا دقو الله سبحانه وتعالى كو هذا الكدقيسته كيس ونكسن الراعة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب انت أكذب موضوع كلمة وحكو سابسن يهي أبار فلد والدين تا وحنا نقول دونا إلهي إذا كيس دان وهل دونه
marka u horeysa inaan fadliga uu leeyahay birrul waalideynka ama waalidiinta oo loo baari noqdo fadliga ay leedahay ilaahay agtiisa. mar labaadka inaan ka hadlo noocyada loogu baari fali karo. qodob saddexaad wuxuu noqon doonaa aadaabta ay leedahay u baari falidda waalidiinta, aadaabta la rabo inay laazimaan caruurtu waalidkood si ay ugu baari noqdaan. qodobka afraad wuxuu noqon doonaa hooyadu xagga baarinimada inay aabbaha ka horeyso oo ay kaga xaq leedahay iyadoo labadooduba ay xaq leeyihiin. qodobka shanaad wuxuu noqonayaa inaan bal wax ka aragno dadkii wanaagsanaa ee inaga horreeyey bal siday u baari fali jireen iyo baarinimada siday u samayn jireen inaan iyadana wax ka jalleecno. qodobka shanaad wuxuu noqonayaa geeridooda kadib sida loogu baari fali doono. ma noqonayso keliya noloshooda keliya baarinimadu xataa haddii ay geeriyoodaan oo fursadii ku dhaaftay ama aadan ku baraarugsanayn geeridooda kadib ayaad baari u fali kartaa. arrinka lixaad aan ku soo khatimayno waxa weeye in laga digo arrinka ka soo horjeeda oo ah in waalidka lagu caasiyo ama aan baari loo falin oo cuquuqul waalidayn waxa la yiraahdo iyo ka digiddiisa inaan isagana aan wax yar markaa ka taabanno iyo sheekooyin ku saabsan. haddii aan bilaabo marka hadalkayga inta aanan u gelin qodobadaas inaan si tafsiil ah wax uga taataabto, waxaan jeclahay inaan aayaad qur'aan ah ka horumarsado insha allahu tacaala, maadaama qur'aanka kariimka ah uu yahay midka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga dhigay caafimaadka iyo hanuunka, ilaahay nooga dhigay jidka toosan ee loo baahan yahay inaynu qabsanno. jidka toosana haddaynu raacno ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu ballan qaaday inuu jannada noo daadihinayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الحمد لله waxaan ka hadlaynaa walaalayaal waa waalidiinta iyo in loo baari falo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiinta fadligooda iyo baarinimadu fadliga ay leedahay nusuus badan buu alle subxaanahu wa tacaala ku sajilay qur'aankiisa kariimka ah. qaar ka midana aayadihii hadda aan dhegaysanay ayaa aad ka arkayseen oo laba nebi oo nebiyada ka mid ah nebiyullaahi
يحيى ونبي الله عيسى عليهم السلام لبضبا إلهي سبحانه وتعالى وحكدغي ويلال باريالا إلهي سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام وحيل وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا ولم يكن جبارا عصيا عاصي ما هين جبار مد هذا الأضق وعمل أضق وعمل حن ما هين وحوها مد بار والدين تسواه نبي الله عيسى إلهي سبحانه وتعالى وكان عرف كيسا إنه شيء إسقو ير وحندولك كجرة إنه يراهدو وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وعن الكاكار كينا إلهي سبحانه وتعالى إنه دينا عنقاتو صيوه قفكو هدانو بار النقون وحو النقون يا جبار شقية معاصية تاسا دينا عكالاتو أطالة marka inuu baari noqdo waalidiinta baari u ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu raali kaga noqdo waxa bedelkeeda ah oo maqaabilkeeda ka soo horjeeda waxa weeye inuu noqdo jabbaar shaqiya oo aan khayr lahayn oo ayaan daran walaalayaal waalidiinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu sabab uga dhigay joogitaankeena iyo jiritaankeena adduunkan inaan joogno labadaas qof ee aabbaha iyo hooyada ah ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uunkeena sabab uga dhigay isagoo dadka uumay wuxuu sabab uga dhigay aabbaha iyo hooyada marka waa labada qof oo sabab u ah inaad jirto oo bacd allaahi subxaanahu wa ta'ala kugu fadli badan oo adiga kugu leh abaal kugu leh sidaas darteed ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu xiriiriyey markaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala u mahad celiso oo ilaahay u shukrido waa inaad waalidiinta iyagana u shukrisaa oo u mahad celisaa maxaa yeelay khalqigii uumidda ahaydna oo koowaadna ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala iska leh sababtii adiga jiritaankaaga ahaydna iyagu ilaahay subxaanahu wa ta'ala sabab uga dhigay saas darteed buu ilaahay isku xiriiriyey wuxuu anishkur lii waliwaalidayk cid kaleeto uu ilaahay ku soo xiriiriyey mahad celintiisa ma jirto aan waalidiinta ahayn anishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir alla subxaanahu wa ta'ala aayado badan buu marka ku tilmaamay oo ku xiriiriyey tawxiidkiisa iyo alla subxaanahu wa ta'ala garashadiisa xaqiisa in la garto oo xaqa koowaada oo ah in la caabudo oo si xaq ah loo caabudo oo aan cid kale la caabudin ayuu alla subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku xiriiriyey waalidiinta iyo xaqooda in iyagana la ogaado oo la ilaaliyo sidoo leeyahay alla subxaanahu wa ta'ala wa'budu allaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana fi ibadati ilahi subhanahu wa ta'ala labadii amar oo ugu darnaa amar lays amro iyo wax la iska reebo waxa ugu daran waxa weeye in lagu faro cibaadada ilaahay subxaanahu wa ta'ala amarka ugu weyn oo laga reebana waa inaadan ilaahay subxaanahu wa ta'ala u shariik yeelin cibaadadiisa wuxuu ku xijiyay alla subxaanahu wa ta'ala labada waalidin loo ihsaan falo wa wasayna al-insana wa bil walidayni ihsana ayada kalena ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsanan insaanka waxaan faraynaa oo la faray labada waalid inuu ihsaan u falo yaani inuu wanaag iyo baarinimo iyo tixgelin iyo qadarin iyo ixtiraam iyo u adeeg iyo daacad inuu kula socdo labada waalida dhashay markii sidaas si guud ahaaneed loo faray ayaa hooyada marka si gaar ah alla subxaanahu wa ta'ala aayaad badan ugu tafsiiliyay iyada xaqeeda oo si gaar ah leen waxyaalo badan ayay aabihii kala gaar noqotay iyaga oo labaduba ku shirkoobay qodobkaas si gaaran uga hadli doonaa insha Allah wuxuu kaloo ilaahay subxaanahu wa ta'ala u leeyahay وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وحو إلهي اسكو حريري عبادتيسي ونفري إنينو إساق عبادة أخالص يلنو إيوه
إحسانك والدين تلو فلين ولبا إلهي سبحانه وتعالى وحكو حريرية بأداس وبالوالدين إحسانا مر البابا حريرين إحسان حرير سن وأد لدو التاغنتهي إيا طاعد أد لدو التاغنتهي وحي عن معصية هين إيا قودن إيا دنع والبا أو وح وناغة aad ku xiriirinayso inuu noqdo xiriir arin aan kala go' lahayn oo aad la dul taagan tahay oo aad la dul joogto oo aad ugu adeegayso oo aad ku qadarinayso oo baarinimadooda aad la dul taagan tahay inuu noqdo arinkaas waxa kale halka laga fahmayaa inuu noqdo ihsaankaas sidayan adigaba ku dayici jirin markii aad yarayd oo yan meel cidla kaaga tagi jirin inaadan meel cidla kaga tagin meel cidla ah inaadan kaga tagin zamanadan dambe walaalayaal waxa badatay xuquuqul waalidiinka waana calaamaadka saacada waxa badatay ninku inuu ilmihiisa ka hormariyo oo iyaga raali gelintooda wax walba ku bixiyo oo iyaga uu maaragtay xoolo iyo tabar wuxuu hayo oo dhan geliyo waalidkuna ay iska yeeshaan wixii hadhow laga maarmaana wixii laga maarmi waayo inay iyaga maaragtay haddii guri la rabo haddii lacag la rabo haddii dahab la rabo haddii xoolo kale la rabo haddii meel wanaagsan la seexanayo haddii meel loo dhoofayo haddii meel la aadayo kullu waxaa leh ilmihiisa iyo xaaskiisa ama waalidiinta wixii hadhow intaa ka soo hara oo futaadka ah haraaga wixii soo hara ayaa maaragtay iyagu ay wax ku leeyihiin arrimahaas waxay noqdeen arrimo shaa'ic ah oo badan oo fara badan waayadan dambe iyo zamanadan dambe waana arrin halisa oo mawaasiintii isku qaldaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka manaasishu dhigay iyo qof walba meeshuu dejiyey aan la dejinayn allah subxaanahu wa tacaala waalidiinta u xisaan falidooda iyo nafaqadooda cibaadadiisii buu ku xiriiriyay allah subxaanahu wa tacaala baynamaa ilmaha hal meel ama laba meel adiga lagaaga dardaarmay laakiin waalidiinta la adkeeyey dardaaranka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dardaarmay ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه waxaa marka loo baahan yahay walaalayaal in ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiinta meeshuu dhigay iyo dardaaranku ka dardaarmay in la adkeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dardaarankiisa haddaan la adkayn waxaa ka dhalanaysa alla subxaanahu wa tacaala inuu caroodo hadduu caroodana alla subxaanahu wa tacaala waxbuu ciqaabaa naar buuna leeyahay alla subxaanahu wa tacaala ودتك عصادة عاسيي أوامرتي سكل حضي والله سبحانه وتعالى أضيار صدي ولذلك أي أرن كاسو أرن هالي سيهي هديان حلا يسكسارن أول الدريمين أما النبي عليه الصلاة والسلام دور حديث بان كسو قادنا إنا بل إساقنا ماشا أوديغاي والدين تي يحسان فلدوض والدين تي يحسان فلدوض وسبب وين oo jannada lagu galo way albaabada jannada albaabada ugu waaweyn ayay ka mid tahay waalidiinta u xisaan falidooda baari u noqoshadooda inaad ku gasho oo acmaalo dhan ka horeysa acmaalo dhan ka hormariyay nabiga kaleey salaatu wasalaam sidoo leeyahay abu hurayra radiyallahu anhu muslim iyo tirmidhi bas warinayaan wuxuu leeyahay النبي عليه الصلاة والسلام وحيم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه يعني قف كاسو وقف دلوبي أو أفك عيد لقلي دل النمو أو دعي أو كفي أو خير كحقين سيبا أنا نصيب كلهين وان ياوي أبو هريرة رضي الله عنه ويري وان يابي
man yaa rasuula allah waa kuma kan saa u dulloobay oo hoogay oo halaagsamay qaala man adraka waalidayhi cinda alkibar axadahumaa aw kilayhimaa qofkii soo gaaray labadiisii waalid oo weliba da' ku soo gaaray midkood ama labadoodiiba uma lam yadkhul iljanna oo haddana aan janno gelin say u suurtoobi kartaa macnuhu waxa way say ku dhici kartaa qof janno haystay oo jannadii albaabkeedii geli waayey say ku dhici kartaa waa dullinnimo iyo ayaan darro iyo hoog iyo halaag marka waa sabab weyn oo janno lagu galo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabada jannada uu furay arrin kale waa arrimaha ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha ugu jecel yahay ayuu birulwaalidaynku darajaadka ugu horreeya ka gelayaa sida ku cad xadiiska cabdullahi bni mascuud radia allahu canhu ee bukhaari iyo muslim bay warinayaan wuxuu leeyahay sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalama ayu lcamali axabu ila allahi camalka kee ilaahay ugu jecel yahay qaala alsalaatu calaa waqtiha alsalaatu calaa waqtiha salaadda oo waqtigeeda lagu tukado qultu uma ayu maxaa ku xiga rasuulkii allow qaala biru lwaalidayn qultu uma ayu qaala aljihaadu fi sabiili illah waa xadiis muttafaq calayh xadiiskaas wuxuu geliyey darajadii labaad ayuu geliyey bal xataa jihaadkiibuu ka hormariyey axaadiis kalena way ku cadday inuu jihaadkii xataa ka horreeyo sida ku cad xadiiska cabdullahi bni camr bn caas radia allahu canhuma wuxuu yidhi aqbala rajulu ila الnabiyi salى allahu calayhi wasalam nin baa nebiga calayh salatu salaam u yimi faqaala ubaayicuka cala alhijrati wاljihaad abtaqi اlajra min allahi tacaala waxaan kugula baayactamayaa oo beeca kugula gelayaa ballan adag kugula gelayaa rasuulkii allow jihaad iyo hijro inaan kuu soo hijroodo anuu ajar ilaahay kaga rabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi intaanu su-aashii uga jawaabeen hal min waalidayka axadun xay labadaadii waalid cidi ma ka nooshahay mid ma ka nool yahay qaala nacam bal kilaahumaa labadoodiiba waa joogaan buu yidhi qaala wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fatabtagi alajra min allahi tacaala oo ajar baad ilaahay ka rabtaa qaala nacam qaala farjic faaxsin suxbatahumaa sow ajar ilaahay kama rabtid oo ma raadinaysid oo hijradan iyo jihaadkan aad leedahay waan kugula beeca tegayaa waxaad ka rabtaa ajar ilaahay haa noqo oo iyaga wanaag iyo ixsaan kula soco suxbatahumaa la socod way ku lamaanaan way maaha xaggaasaan ka tuuri anna xaggaasaan aadi mashriq iyo maqrib baan ku kala tuuri warna kama hayo waxna kama hayo maya wuxuu yidhi fa axsin suxbatahumaa la socodkooda iyo la jirkooda hagaaji iyo adeegooda waa xadiis muttafaqan calayhi ah muslim baana lafdigaa iska leh riwaayad kaleeto wuxuu la yidhi nebigu calayhi salatu salaam markuu ninku u yimi oo jihaadka uu u idin dalbaday inaan kula jihaad galaan rabaa rasuulkii allow qaala wuxuu ku yidhi axayun waalidaak labadii ku dhashay ma nool yihiin qaala nacam qaala fa fiihimaa fajaahid iyaga ku jihaad yacni jihaadkaagu waxa weeye iyaga inaad u ixsaanfasho u baarifasho u adeegto hagaajiso wanaajiso ayaa u noqon xadiis afraad nebigu calayhi salaatu wasalaam oo tirmidi uu sanad saxiixa ku wariyey wuxuuba caddaynayaa waalidiinta raalinimadooda inay raallinimada ilaahay ku jirto caradoodana carada ilaahay subxana wa tacala inay ku jirto bimacnaa haddii waalidiintii raalli kaa yihiin oo qalbiga ay kaaga ducaynayaan ilaahayna subxana wa tacala raalli buu kaa noqon haddii ay iyagu caraysan yihiin oo qalbiga wax ku haysta ya waalidku badanaaba ma muujiyo caradiisa hooyadu khaasatan waxa weeye insaanka ama makhluuqa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan korkiisa uu saaray oo ku abuuray
oo diyaar u ah inuu wax walba huro waxna aanay uga soo noqon haba yaraate makhluuq kasta oo aad wax u wanaajiso oo wax u samayso xaaskaaga ilmahaaga asxaabtaada tolka dadka kullu nin walbi waxa way waxbu ka raba hadduu waxa ka waayo kunac laakiin iyadu ma ku jirto waalidka kuma jiro bani aadamka adduunka ugu liita haddaata ugu nacsan waa ku rabaan waa ku jecel yihiin waa ku kolkolinayaan cirkay ku geynayaan xidigaha ayay ku saarayaan wax walba haddaad dadka siiso oo iyaga aan waxba uga soo noqon oo ay kugu soo tacbeen oo kugu soo rafaadeen oo dartaa ay dhiig uma tageen isla mar ahaantaas haddana diyaar waxay u yihiin weli inay wax walba bixiyaan oo kuu huraan adiga waa makhluuqa sidaasa oo aan waxba doonahayn waa makhluuqa sabirkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala un keliya uu uga abaalgudi karo cid ugu abaalgudi kartaa ma jirto bani aadama yaa u abaalgudi kara hooyo yaa u abaalgudi karaa haddaad dahabka adduunka oo dhan siiso uma abaalgudi kartid haddaad xoolaha adduunka yaaloo dhan dusha kaga shubto ma abaalgudi kartid in yar xataa abaalkeeda kama gudi kartid cabdullaahi ibni cumar ayaa wuxuu arkay nin hooyadiis dusha ku sida garbaha ku sida oo la dawaafaya kacbada kula dawaafaya oo xajkii la socda oo dusha ku sida markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cumarow hooyaday saasaan u sidaa buu yidhi xajka saasaan ku keenay abaalkeedii ma guday markaasuu yidhi hal harraati oo caloosheeda markaad ku jirtay aad ku dhifatay maadan gudinbu harraati miyaadan arag xaaskaagu markay uurka leedahay oo maalin walba markuu uurku soo kordh caloosha soo weynaato tacabkeeda iyo dhibkeeda iyo rafaadkeeda way soo siyaadaysaa ma seexan karto oo si wanaagsan uma jiifan karto oo si fiican uma fadhiisan karto oo markay kacayso waa rafaadsanta oo markay fadhiisanayso waa rafaadsanta saasoo ay tahay wax walba aday kaaga farxad badanta inaad sidaa u dhibto way ku macaansanaysaa cabdullaahi ibni cumar baa wuxuu ku yidhi maxaa yeelay adigu wuxuu yidhi dusha waxaad ku sidaa adoo isleh goormay kaa degaysaayo aad dhulka dhigaysaa jecel inaad dushaada ka dejiso ood dhulka dhigto iyaduna waxay ku qaadi jirtay iyadoo jecel inaadan dusheeda ka degin ee ay ku sido oo dusha kugu wado markaynu weynaanay oo xoog yeelannay oo tabar yeelannay oo xaasas yeelannay carruur yeelannay ayaan waxaan u malaynay inaan sidan ku dhalannay oo sidan annagoo ah aan adduunka nimi saas darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rida rabbi fii rida alwaalidayn wa sakhatu rabbi fii sakhati alwaalidayn raalinimada ilaahay waxay ku jirtaa raalinimada waalidiinta carada ilaahayna waxay ku jirtaa carada waalidiinta waxaa ka mid a fadligiisa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo sabab dhibaatooyinkaaga iyo rafaadka iyo kurbooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga faydo oo dhibaato kasta oo culus ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha uu dadka kaga saaro inay ka mid tahay birrul waalidiinka waxaana u daliilay xadiiskii saxiixaynka 3 nin oo dadkii hore ah uu nebigu calayhi salatu wasalaam nooga sheekeeyey oo god ku dumay meel cidla ah iyagoo maraya oo yidhaahdeen maanta godkan waxayna maqlaaya iyo meelan uga bixi karnaa ma jirto camalka ugu wanaagsan qof walbo waad samaysa bal soo sheeg waxaa ugu horreeyey ninkii baarinimada waalidkiisu falay oo habeenkii oo dhan caanaha la dul taagnaa soo lisay caanihii ay seexdeen ayuu habeenkii oo dhan korkooda la taagnaa oo aanu lana fariisan cid kalena siin haddaan arrinkaa ilaahay dartiis u sameeyey ilaahu naga fayd buurtii baa dhaqaaqday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhinacu uga furay amaa walaalayaal siyaabaha baarinimadaas loo gudan karo oo anwaacdiisa ah aad bay u fara badan tahay
siyaabo badan ayaad ugu baari fali kartaa waalidiinta waxaa ka mid ah wanaagga iyo xiriirinta iyo nafaqaynta oo ixsaanka darajada ugu horeysa ah ee lagu farayo waxaana hoostiisa soo gelaya wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaanan wax walba oo ixsaano wanaagah inaad ku hormariso oo iyaga kaga bilowdo intaadan carruurna siin xaasna siin cid kalena siin waxaa kaleeto oo ka mid ah inaadan agtooda iyo hortooda aadan dhibsan waxa ay ku odhanayaan ama waxa ay ku farayaan ama waxa ay doonayaan oo talaa inaadan muujin inaad nacayso oo kahanayso waxaa kuu taalla halkan walaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariima waxaan qowl kariim ahayn male hadday ku garaacaan iyo hadday ku caayaan iyo hadday si kale ku idhaahdaan iyo waxaadan raalli ka ahayn hadday sameeyaan giddiba waxa weeye adiga xaggaaga kelimad inaad muujiso hortooda ah aad ku muujinayso inaad waxaa nacsan tahay amaad kahanayso amaad diidayso ama aadan rabin arrinkaas inaad muujiso kuma bannaana bal waa inaad aad dhulka isugu dhigtaa maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay wakhfid lahumaa janaaxa adulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa weliba ducaa ugu sii daraysaa waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani saqiira xaggee arrinkaasu ka joogaa marka aynu waalidiinta markayna la hadlayan xaggaan usii jeednaa gabadha xaggay usii jeedaa marka hooyadad la hadlayso ninkuna wax kaluuba la hadlaaya marka waalidkii la hadlaayo hada laysa min albir baarinimo ma arrinkaas daa isu malaynayso baarinimada ama cuquuqu inuu yahay keliya inaad ama caydo ama xumayso ama garaacdo keliya maaha cuquuqu intaa keliya maaha walaa taqul lahumaa ufin bal wakhfid lahumaa janaaxa adulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani saqiir inaad dhibsato haba yaraatay ama muujiso xataa maaha markay hadlayaanna waa inaad u dhegaysataa adigoo dhan oo wada dhegaysi ah dhega ah jirkaagoo dhan waa inuu wada dhega yahay marka ay hooyadu hadal soo qaado ama aabbuhu hadal soo qaado waa inaad wada dhegaysataa kulligaa waxaa kaleeto oo baarnimadaa ka mid ah inaadan codka kor ugu qaadin codkaaga codkooga inuu ka sarreeyaa marnaba maaha hooyada inuu hadalkaagu ka sara maro marnaba maaha ama aabbaha ka sara maro waxaa kaleeto ka mid a hadal buu wataa ama hadal bay wadataa inaadan ka goyn hadalka ilaa ay dhammayso baarnimadu taas waad ku cibaadaysanaysaa waxaasoo dhan waa cibaado ilaahay baad ugu dhowaanaysaa leanno baarnimo hadalka inaadan ka goyn inaad dhegaysato inaadan la murmin oo la doodin hadalka ku celcelin hadhow haddaad rabto siyaabo kaleeto arrinka u maslaxa oo u tartiibi oo dad kale u adeegso walaalaha la adeegso cid kale la adeegso inaad qanciso laakiin inaad la muranto saas maaha saad sheegaysaa waxba kama jiraan waxba ma fahmaysid duq yahay waxaad fahmaysa male odayaho waxaad garanaysa male kada inaad la muranto ma aha abadan laysa min albir abadan waxaa ka mid ah anwaacda baarinimada hadday hurdaan inaadan hurdada ka iscaajin ama ka kicin ama ku qaylin ilaa ay ka bogtaan raaxadooda ee ay ka bogtaan had iyo jeer inaad tusiso inaad ka hoosayso oo u baahan tahay oo dhegaysanayso hadalka waa inaad iyaga ku hormarisaa socodka waa inaad iyaga ku hormariso aadan ka horrayn oo aadan ka hor dhicin adoo ixtiraam iyo qadarin iyo weynayn arrinkaa u samayna intaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha baarinimada aad ku samayn karto waxaa kaloo ka mid ah inaad had iyo jeer u mahad celiso oo u shukriso oo u ducayso salaad walba aad tukato iyo waqti walba aad soo dhaqaaqdo maxaa yeelay shukrigooda ayaa ilaahay shukrigiisa ku xiriiri an ishkur lii waliwaalidayka sidaan sheegna waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira marka waa inaad ugu naxariisataa
oo aad ugu mahad celisaa waxay sameeyeen hooyada waxay si gaara u leedahay baarinimada 3 qaybood 4 qaybood marka loo qaybiyo 3 meelood hooyada nasiibkeeda u leh bimacnaa bimazid siyaado ayay u leedahay baarinimo ayadu oo ninka markuu weydiiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah man axaqu nnaasi bixusni suxbati aw bixusni saxaabati yaa dadka ugu xaq leh wanaag inaan kula socdo wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaam ummuk qaala uma man qaala ummuk qaala uma man qaala ummuk 3 jeer buu hooyadiisii qaala uma man qaala uma abuk aabihina hal meel balasi maxaa yeelay markay waalidnimadii iyo abuurkaagii iyo jiritaankaagii iyo korriimadaadii ay ka wada qayb qaateen arrimo gaar ah oo adag bay iyadu la gaar noqotay waxay la gaar noqotay xamligii iyada uurka ku qaada aabbu wax kama qaadan waxay la gaar noqotay dhalmadii iyadaa ku dhashay oo foosheedii ayaad ku dhalatay waxay la gaar noqotay nuujintii waxay la gaar noqotay intii kaleeto oo la xiriirtay hooyada iyo intaad yarayd ka warhayntaadii ayay la xiriirtay oo aabbuhu intaasba aan waxba ku lahayn intaa iyada gaar u leh saas darteed ayaa ilaahay waa caadile iyada 3 qaybood baarinimadiisii marka waa iyada si gaar ah in loogu sameeyaa khaasatan iyadoo qof daciif ah oo dumar ah xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin ilaahay subxana wa tacala iyadoo daciifa baa haddana xamligii iyo dhalitaankii iyo nuujintii iyo waxaasoo dhammi waxay u siyaadiyeen dacfi markaasay ku sabirtay oo ku dulqaadatay saas darteed ayuu yidhi nabigu calayhi salatu wasalaam ina allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaat halkan hooyada keliya ku hadlay halkan maaha aabbahana in caaqnimadiisa la ogol yahay laakiin waxaa lagu tusayaa hooyada inay ka sii daran tahay xaalkeedu inuu ka sii daran yahay oo halis yahay waxaa kaleeto oo ka mid ah anwaacdaas aynu ugu xisaan falayno walaalayaal in amarkooda iyo dalabkooda iyo umuurahooda lagala hormaro dadka kale yani haddii raashin la qadimayo iyagaa la hormarin haddii cid wax laga bilaabay iyada laga hormarin haddaad safar ka timaad iyada ka bilaabay iyagaad ka bilaabaysaa wax walba iyagaad ku hormarinaysaa hadalka iyagaa ku hormarinaysaa iyagaa lagu tixgelinayaa inaad naftaada kula jihaado raalinimadooda sidaad u heli lahayd oo qalbigooda xataa haddii ay kayra muslimiin yihiin حتى هذين المسلمين هين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا بيقول إلهي كوي قال لها حيا الوالدين حقوا مرنا مرة عيون مركي وينادان waxay sii yeelanayaan xuquuq inta ka sii weyn oo u dhimrin iyo u tartiibin iyo qalbigooda farax gelin hadiyada iyo waxsiinta iyo waxaan filanayeen u qaadida iyo meelaha ay jecel yihiin raadinteeda arrimahaas oo dhan iyo ka ilaalinta wax kasta oo dhibaya marka ay weynaadaanna waa arrin looga baahan yahay habeen iyo maalin inaad ku soo jeedo oo aad ka warhayso maxaa dhibaya ma dhaxan baa hays ma kulayl baa haya xaggay seexdaan xaggay ku baryaan maxay cunaan maxay cabbaan maxay fuulaan maxay socdaan maxaa jira xaalkoodu see yahay inaad arrimahaas oo dhan waa arrimaha baarinimada lagu leeyahay dadka qaar baa waxay isaga haystaan inay tahay baarinimadu xogaa masruufa oo la siiyo keliya walaysa hada faqat baarinimadu intaa keliya ma baarinimadu intaa keliya ma waa kala gaar kala jaad weeye xaq inaad gudato oo aadan caaq ahayn oo aad masruuf u dirto laakiin inaad baarinimadii jannada lagu geli jiray shaqaysataa shaydkani waa adeer maaha saad u malaynaysa maaha shaka baarinimada uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam janna lagu galay waxa weeye tii uu yidhi alzim rijlaha fathama aljanna lugteeda hoosteeda joog buu yidhi jannadii halkaasay taalla maxay tahay lugteeda hoosteeda joog ya waa arrimihii hadda aan soo sheegayno yaan lagaa waayin agteeda waxay doonayso waxay u baahan tahay ukeen raadi
hooye haye xagee u baahan tahay maanta xagee ku geeyaa yaa maanta yaa soo ziyaaranaysaa xaggan kaaga keenaa alaabtan xaggan kaaga soo qaadaa maxaad jeceshahay maxaad cabbaysaa maxaad cunaysaa xagee seexanaysaa xagee ku geeya xagee kaa soo qaadaa alzim rijlaha waka ya maaha xoogaa masaariifa halkaa laga tuuraayo waa arrin fiican laakiin baarinimada darajadeedii maadan gaarin mana haysid waddadeedii mana haysid nafaqada waa waajib nafaqadood qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayn walaqrabiin hooyada iyo aqrabiinta masalan khaalada oo kale habaryartu waa bimansilati alum binasi xadiisi rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam nin kalena wuu weydiiyey cabdullahi bn cabbaas oo u yimi oo dembi weyn galay markaasuu yidhi hooyadaa ma nooshahay markaasuu yidhi maya markaasuu habaryartaa ma nooshahay markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi meeshii hooyada iyadaa joogta ee iyada xariiri waxaa kaloo ka mid a baarinimada anwaacdaas ood ugu baari falayso isti'daanahumaa qabla safar inaad ka idin qaadato safar haddaad gelayso cajiib ma weydiisaan hooyada iyo aabbaha ma la weydiiya haddaad meel u safrayso ama meel aadayso jaamacadaad aadi meel kalead aadi shaqaad aadi waadanbaad aadi ma la weydiiyaa mase xisaabtaba kuma jiraan isti'daanahumaa qabla safar intaadan meel u bixin waa in la weydiiyo hadday kuu idmaan ahlan wasahlan hadday idimi waayaan waa inaad raadiso sidaad idinkooda ku heli lahayd idinkeeda sidaad ku heli lahayd haddii kale waa ka joogaysa arrinkaas ilaa inuu jihaadku farducayn noqdo markaa iyo xajka oo fariida isaguna ah fariido ilaahay ah ka horaysa labadaas muwaafaqadood kuma xirno laakiin wixii ka soo haray laabudda waxaa kaleeto ka mid ah inaad u ducayso ama joogitaankooda ama geeridooda kadib waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiran inaad kula xiriirto waxaa ka mid a walaalayaal aadaabtaas aad ilaalinayso aadaab badan oo loo baahan yahay qofku inuu ku xiriiriyo oo baarinimada ah laakiin macnaha meesha yaalla waxa weeye haddaynaan bahayn waalidiintiiba aynaan is arkin ama aynaan laba joogin ama hooyadii aynaan la joogin si arrimahan u samayn karayna baarinimadan iyo waxa kan janno lagu shaqaysanayo xaggeen ka keenaynaa seen ku helaynaa maba haynee marka in waalidiintii laga warhayo khaasatan markay weynaadaan oo la ilaashado waa janno kuu socoto oo kuu joogta meesha inaad raadsato inay ku ag joogaan waa arrin loo baahan yahay in lagu dadaalo waxaa ka mid a adaabta marka lala hadlayo saan sheegnay wanaag inaad kula hadasho wejigooda inaadan wajiga u kaduudin xataa adigoo caraysanan indhaha aada ugu fiirin oo ugu gubin inaad ilaaliso sharaftooda iyo maalkooda iyo magacooda inaad ilaaliso inaad ku camal fasho wax halaale iyo wixii aad isleeda way farax gelin kartaa inaad ka hor dhacdo oo aad soo samayso si aad masalan inaad u adeegto wax u soo gaddo alaab u keento waxyaalahaasoo dhan wixii ka maqanoo cilmiya aad ku kordhiso ay janno ku gaari lahaayeen si tartiib ah oo aadaab ah maaha si kibira oo waxba ma taqaaneen iyo waxba jahli weeye waxaad wadaan aanan ahayn hadday kula hadlaan ama kuu yeeraan inaad markiiba ajiibto weeye oo wax walbaad ka hormariso wax walbaad ka hormariso bisurca sida ugu dhaqsi badayna u ajiibto oo aad tidhaahdo haye hooyo haye aab aad ku jawaabto magacooda inaad inugu yeerin inaad hagaajiso asdiqadooda iyo dadka iyaga saaxiibka la'ah hooyadaa dadka islaamaha saaxiibka la'ah ay is yaqaaniin qaraabaday yihiin aabbahaa sidaas oo kale hala murmin ha cinaadin oo waxa ay ku faraan waxaad ka horkeenayso oo cinaada ha samayn abadan codkana kor ha ugu qaadin hadday soo galaan ama meel aad fadhido soo galaan
waa inaad inta u istaagto madaxa ka dhunkato soo fariisiso gacanta soo qabato gacmahooda ka dhunkato oo soo dhawayso ixtiraam ahaan u soo dhawayso gabadho hadday guriga joogto waa inay hooyada kaalmaysaa camalka ay u baahan tahay inay ku kaalmaysaa oo guriga khidmadiisa adeegiisa iyo waxyaalaha la mida inay ku kaalmeeyaan hadday qolkooda ku jiraan maaha inaad ugu gasho idin la'aan khaasan dhallinyarada iyo carruurta inaad idin la'aan ugu galaan maaha waqtigooda hurdada in laga kiciya lama khashkhashaado maaha cuntadii in la cuno iyaga ka hor ama gacanta la geliyo maaha haba yaraatee inaan been laga sheegin beenna lagu sheegin ilmahaaga iyo xaaskaaga waana arrimaha u badane oo dadka ka dhaca inaadan ka fadli yeelin oo ka hormarin iyaga waxaa soo baxay waayadan dambe iyo cusuurtan dambe dad inkuu islaantiisu raaligelina xaaskiisa hooyadiisna wuu ka caraysiina walciyaadu billah walciyaadu billah meel iyaga ka sarraysa haddii la fadhiyo ha fadhiisan hooyadaa dhulkay fadhidaa adiga kursiga ku fadhiisanaysa aabbahaa dhulku fadhiyaa adiga kursiga ku fadhiisanaysa meel ka sarraysa laa yajuus ma bannaano aadaabta maaha raalinimadooda raadi xataa lugaha inaad ku fidsato oo hortooda waxaan adab ahayn ku samayso ma aha ha ka faanin aabbaha inaad ku nasab sheegato ama ahaw brofesor ama ahaw doctor ama ahaw caalim laakiin ha ka faanin marna kama faani karto nin salafkii ka mid ah oo muxadisiinta waaweyn oo culimada waaweyn ka mid ahaa oo ardaydu kumayaal ugu imaan jirtay ayaa isaga oo ardaydii wax u dhigaaya oo intaa iyo in ka badan ay hor fadhido ayaa hooyadiis xagga intay uga dhawaaqday guriga markay tiri yaa shurayx markaasuu nacam yaa ummi markaasay tiri digaagga u daadi haruurkii digaagga u daadi sheekhii dhammaa waaya oo meesha hor fadhiyay markaasuu soo kacay soo booday buu digaaggii wixii u daadiyey wixii kale soo kala hagaajiyey soo noqday kama weynid aabbaha kama weynid hooyada hays sharfin haddii ay kula nool yihiin waa inaad ziyaarada ku badisaa booqashada habeen iyo maalin galab iyo subax waqtigaad gurigaa gelayso waxaa leeyahay abu hurayra radia allahu canhu markuu gurigiisa ka sii baxayana hooyadiisu sii mari jiray markuu soo noqdo oo shaqadiisa ka yimaadana taanu gurigiisa gelin buu hooyadii soo mari jiray haaday baarinimadu waa taas baarinimadu waa taas balse waa yadan dambe walaalayaalo waxaa la arkayaa qof le hooyaday 10 sano maan arag aabbahay 10 sano maan أعوذ بالله من ذلك هذا العقوق 10 sano ma aqaan waxay ku nooshahay maxaad korisaa maxaad qabataa shaqada haysaa maxay tahay waxaa ku nooshahay maxaad haysaa ku maqanta maxaase khayr ku dhaafay ma is weydiisay maxaa ku dhaafay khayr waxa weeye inaad marka ziyaaradooda badiso hadday waddankaa fog joogaanna si allaale iyo sidaad ku raadin lahayd waqti walba alal aqal dhowrkii bilood 6 bilood sanadkii inaad mar soo ziyaarato oo muddo la joogto haddii ay suurtageli weyso inaad laba joogto ama meeshaad ku nooshaa ay kugula noolaadaan inaadan nafaqada ku cariirin ilaa ay ashtakoodaan oo yidhaahdaan waxaas iyo waxaasaan u baahanahay aada la sugto carruurtaada iyo xaaskaagana waxaad ku shubaysaa waxaan u baahnayn aabbaha iyo hooyadana waa baahan yihiin oo meel waxay ku nool yihiin daciifa ayu birin haada waxyaalaha dhacaya walaalayaal waxaa ka mid ah inaynu ku tacab khasaarayno yacni haddii aad adigu waalidka
aad sida ilaahay subxaana wa tacaala nafarayo nafaqadii iyo waxsiintii aad iyaga ku horumarinayso oo aad bilaa xisaab u siinayso waxaad ka arkaysaa durriyaddaada ayaad ka arkaysaa iyo ilmahaaga haddii kaletana iyagaa kaa goynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay cuqubooyinka ugu daran inuu ilaahay soo hormariyo adduunka tii aakhiro iyadoo kuu dhimo waxaa ka mid a cuquuqul waalideynka macnaa waxa weeye marka waalidiintii markaaad ciyaalkaaga iyo dadkaaga iyo xaaskaaga iyo waxaad ka hormariso oo iyaga saad doonto u raalligelayso iyagana aadan raalligelintooda raadin ama isku dayin ilmahaaga adigana kaa jaraya adduunka intaan aakhire la gaarin inaad waxa weeye walaalayaal aad dadka ugu karaamo badan oo aad ugu karaamayso dadka inay noqdaan hooyada uma aabbaha oo iyagu jannadaadii iyo naartaadii ah inaad ka digtoonaato inaadan caaq ku noqon oo waxay ka caroodaan ama niyaddoodu ka carooto aadan samayn si aadan naar ugu mutaysan wax kastoo aad samayso habeen iyo maalin haddaad tukato oo habeen iyo maalin wax bixiso haddii qalbiga hooyadu ama qalbiga aabbuhu oo carag ku jirto janno saad ku aragtaa oo adag tahay janno saad ku aragtaa oo adag tahay haddaad wax ka dalabto ama wax weydiisato waa inaad si wanaagsan u weydiisaa oo hadal wanaagsan oo macaan oo qabow ku weydiisaa oo hoose hadday ku siiyaan ama kuu oggolaadaan ama kugu waafaqaan u mahad celi hadday diidaan u cudurdaar dalabaadkaadana ha ku badin iyo hadalka haddii aad adigu wax yeelatana kaalmay qof walba xaqiisa sii xaaskaagu xaq buu kugu leeyahy ilmahaagu xaq bay kugu leeyihin waalidiintuna xaq bay kugu leeyihin adaan rabaa inaad kala hoojiso waxaa hadda ka hormari la soo hadlay islaan magaalada stockholm anoo maraya waxay tidhi sheekhu ka waran haddii qof ilmaheedii wiilkeedii uu magaaladan ku nool yahay oo aanu u imaan oo aanu soo siyaaran oo bilan la maro oo ay ka soo wareegto bilo isagoon u imaanin oo islaantiisa xaaskiisa ka hormarinaaya hooyadiisa raallinimadiisa ama igu caroonaya xaaskiisa darteed hadda ka hor ayaan waxaan ka maqlay qiso yaab leh dalkaas sacuudiga aan joognay nin ayaa hooyadiis daaweynaatay ayaa la deganayd marka waxay deganayd guriga fillooyin iyo waxbaa loo dhistaa meel sare oo qol ah oo la seexiyo dadka shaqaalaha meesha la seexiyo ayay deganayd hooyadu ninka iyo xaaskiisii carruursiina waxay ku jiraan gurigay ku jiraan maalintii dambe ayay meel gaartay way soo noqotay markay soo noqotay waxay aragtay gurigiioo la xiray qolkii ay seexanaysay iyo wiilkeeda xaaskiisiioo meesha taagan oo leh qolka waan u baahannahayoo gabadha shaqaalaha baa noo seexanaysaa markaasay ku tiri oo anigu xaggaan aadaya xaggaan seexanaya wallaahi meeshaad aadayso adaa yaqaan ninkiina waa daba taagan yahayoo xaaskiisa gadaasheed u taagan yahay markaasay tiri meesha aadayso adaa yaqaan shandadeediina bannaankaa loo soo dhigay shandadeedii bay qaadatay xaggee aadi waqtigaas reer deriskoodaa bay u tagtay oo albaabka ku garaacday reerkii baa soo dhoweeyey maxaa dhacay saacaddan ku socodsiiyey oo magacaa waan idinla baryayaabay tiri oo waa kaas gabadheedii bay teleefon u dirtay gabadhii baa waxay ku tiri ay tiri maandha ii kaalay oo iga kaxay meeshan
gabadhii waxay ku tiri hooy kuma imaan karo oo ninkaygu maalintii dhaweyd labada maalmood nala joogtay ayuuba maaragtay qaati billaahi taagnaa haddaynan ku imaado ku soo qaado ma ii suurtoobi karto sidii bay kaga tagtay iyaduna hooyadii meel cidlaa bay ku soo dhacday dadkii marka dariska ahaa iyo dadkii meesha joogay baa dad wanaagsani ku jireen oo qol inta u ijaareen qol dejiyey waxaa saa lagu samaynaya waa hooyo nin kalena wuxuu sheegay nin kale hooyadiis xaaskiisii baa ku taagnaatay weligiinna waad ogtihiinoo waxaa u dhexeeya isqaniin baa u dhexeeya hooyada iyo xaaska haddaan ilaahay u naxariisa gabdhuhuna waa inay ilaahay uga baqaan hooyooyinka ninkan adigu ma aadan soo dhalin uurna ma aadan ku soo qaadin ma aadan soo korin ma aadan soo nuujin markuu dhibka badnaa oo kaadi iyo xaar ahaa ma aadan adigu kuma soo rafaadin isagoo weyn oo barafuun le baad aragtay hooyadiis marka waa inaad ilaahay uga baqdaa oo ilaahay uga cabsataa oo aadan ku dirin oo aadan ka goyn maxaa yeelay hadda adigu saas samayso gabar yahay adigana carruurtaada saa kugu samaynaysa haddaad ninkan hooyadiis iyo aabbiis ka goyso adigana carruurtaada kaa goynaysa gabadhaas waxay samaysay marka waxay tiri hooyadaa baa isixirtay hooyadaa baa maaragtay waxaas iyo waxaas ugu samaysay hooyadiis bay ku taagnaatay islaantiina waxay leedahay war waxaas anigu maanan samayn nin sheekh oo marka imaam masjiday u yimaadeen oo wuxuu yidhi waxaa ii yimi ninkii iyo walaalkiisoo ka weyn waxay leeyihiin na kala xukun marka islaantiina waa calacalaysaayo duqdii maamadu waxay leedahay war anigu waxaa maanan samayn maanan ku sixrin gabadhii waxay tiri yacni wiilka xaaskiisii meel aan kacbada ahayn oo dhaartaada aan ku aqbalaya ma jirto kacbadana gey ha ku dhaarato halkaa hadday ku dhaarato halkaasaan kaga haray meeshii baa la tegey kacbadii baa la tegey hooyo oo haddana dulman bal ka waran adiga waxay noqotay marka meeshii markay ku dhaaratay inay ilaahay u tadarrucdo dulmiga ay ku samaynayaan wiilkeeda iyo xaaskiisii wuxuu leeyahay wiilkii weynaa oo hooyadiis isagu kaxeeyey oo soo celiyey markaanu kacbadii ka soo noqonnay oo aan maamadiina meel aniga soo qaaday gaari soo saaray ninkii iyo walaalkay iyo xaaskiisiina gaari kale ay fuuleen magaaladii kale markaanu nimo soo noqonnay waxaan maqalnay intay jidka soo socdeen in gaarigii la gadoomay meeshii ay ku dhinteen waa wiilkii iyo xaaskiisii waa inaad aada uga cabsataa ducada waalidiinta ducadoodu waa mustajaab xagga khayrka iyo xagga sharta labadaba waa inaad marka ka digtoonaataa xagga sharta inay kugu duceeyaan ama kugu habaaraan haddii aad wax isku khilaaftaan oo ama wax sharciya gabadhan fur sidaan yeel waxaan yeel wax sharci ay tahay waa in arrinka si aadaabsan oo usluubaysan oo aan khilaaf iyo ku qaylin ayan jirin sharciga aad ugu bandhigtaan oo cid sharciga ku kala xukumaysa oo adigiina aan dhibi kugu soo gaarihayn inaad samayso wey inaad ziyaarato wey noloshooda iyo bacda mowdkoodaba oo aad wax u sadaqayso oo sadaqada u badiso oo ducada u badiso oo aad tiraahdo rabbi ighfir lii waliwaalidaya warxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira sidaynu nebiyada ka barannay waa nebiyullaahi nuux calayhi salaam rabbi ighfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'minan nebiyullaahi ibraahim rabbi ighfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab inaad waalidiinta u dembi dhaqto hadday muslimiin yihiin gaala hadday yihiin waa la diiday in loo dembi dhaaf weydiiyo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu maka u socday fatxigii
wuxuu dalbaday qabrigii hooyadiis inuu siyaarto waa loo ogolaaday inuu siyaarto laakiin waxaa loo diiday inuu dembi dhaaf u weydiiyo marka asxaabtu radiyallahu canhum waxay leeyihiin maalintaas nabiga calayhi salaatu wasalaam aan raacnay oo aan qabrigii hooyadiis la tagnay aad buu u ooyey nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintaasoo kale suu ooyey maanan arag bay yidhaahdeen asxaabtu ridwaanullahi tacaala calayhim haddaan walaalayaal wax ka soo qaadno waa qodobka afraade dadkii salafka ahaa sida ay yeeli jireen bal qaar ka mid a moxamed ibnu lmunkadir waxaa la yidhi intuu dhabankiisa dhulka dhigo ayuu hooyadiisu wuxuu odhan jiray quumii daci qadamaki calaa khaddi hooyo istaago lugtaada dhabankayga saar wuxuu leeyahy curwa ibnu zubayr radia allahu canhuma curwa waa taabici zubayr ibnu cawaan baa dhalay radia allahu canhu maa bara waalidahu man shada darfa ilayhi qof indhaha ku kululeeyey oo ku adkeeyey waalidkiis baarinimo muuyan falin buu oran jiray markuu dhintay cumar ibnu dar qaaluu waxay yidhaahdeen liabiihi dar aabbihiisay weydiiyeen oo kayfa kaanat cishratuhu macak sidee buu wiilkan dhintay nin saalix u ahay wanaagsana kuu ahaa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi maa mashaa macya qad fi leylin ilaa kaana amaami habeen hadduu i raaco buu yidhi weligiis hortaydu socon jiray ila waa habeen oo wuxuu doonayaa inuu ka ilaaliyo wax allaalayo wixii dhiboo iman kara walaa mashaa macya fii nahaarin qatun ilaa kaana waraa'i maalin hadday tahana weligiis gadaashaydu socon jiray walaa artaqaa sadxan qad kuntu taxtahu weligiisna dabaq ma fuulin buu yidhi anigaan hoostiisa ku fadhiyo dabaq guriga haddii lagu nool yahay dabaqa sare weligiis ma fuulin haddaan anigu hoos joogo caliy ibnu lxusein radia allahu canhuma xusein ibn caliy ibn abi aalib weeye oo cali ibn abi aalib baa u ah awowe cali ibn xusein zayn alcaabidiin weeye waxaa la yidhi hooyadiis inuu wax la cuno marar badan uu ka biqi jiray oo hal maa'ido uu kula cuno wuxuu odhan jiray akhaafu an tasbiqa yadii ilaa maa sabaqat ilayhi wax isheedu u hormartay ayaan ka baqayaa inay gacantaydu u hormarto oo fa akuunu caqaqtuha aan noqdo nin markaa hooyadiis caaq ku noqday maxamed ibnu siriin taabiciga weyn ee jaliilka ah ee muxadidka ah raximahu llahu tacaala waxaa la yidhi hooyadiis markuu ag joogo waxaa loo malayn jiray inuu xanuunsan yahay sida uu isugu dulaynayo ama uu hooyadiis hoosteeda ku yahay waxaa la yidhi balaqat innakhlatu fii cahdi cuhmaan ibni cafaan 1000 dirham geedka timirta ah cahdigii yani waqtigii cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu waxay gaartay 1000 dirham marka geed ayuu wuxuu ka soo gooyey laan oo hooyadiis uu maaragtay uu siinayo waxay ku yidhaahdeen maa yaxmiluka calaa hada maxaa arrinkan kugu kalifay adoo arkaya geedka timirta intuu gaaray wuxuu yidhi ina ummii sa'alatnii hooyadii baa i weydiisay buu yidhi walaa tas'alnii shay-an aqdiru calayhi ilaa acطaytuha mana jiro shay an awoodi karo i weydiista ilaa waan siiyaa caaisha radia allahu canha waxay tidhi laba nin oo asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ah rajulaani min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama abaru man kaana fii hadihi alummati biummihimaa labada ninoo ugu baarinimo badan bay ahaayeen hooyooyinkood ummaddaan intaanu aragnay cuhmaan ibni cafaan wa xaarisata ibnu nucmaan radia allahu canhuma xaarisana cuhmaanna waa garanaysaanoo waa min ahli ljanna waa khaliifatu thalith xaarisa ibnu nucmaanna waa ninkuu nebigu calayhi salatu wasalaam intuu yidhi jannadan galay habeen baa lay zuliyey oo jannadan galay markaasaan waxaan maqlay qur'aan qof akhrinaya oo iga qarsoon markaasaan waxaan idhi waryuu yahay ninka qur'aanka akhrinaya oo jannadan ku dhex akhrinaya markaasaa la yidhi waa xaarisatu ibnu nucmaan
markaasuu yidhi nebigu calayhi salatu wasalaam kadalikum albiru kadalikum albiru kadalikum albiru baarinimadu saasay yeeshaa baarinimadu saasay noqotaa baarinimadu saasay noqotaa ninkaasu jannadii inuu ku dhex dabaasho ayaa ilaahay ku dhexal siiyey marka labadaa nin maxay samayn jireen waxay leedahay caaisha radi allahu canha fa ama cuhmaan fa inahu qaala wuxuu yidhi maa qadartu an ata'ammala ummii mundu aslamtu ilaa maalintaan islaamay hooyaday wejigeeda inaan si fiican u fiiriyo imama suurtogelinba ixtiraam iyo haybad anu qabo wa ama xaarisa fa inahu kaana yaflii ra'sa ummihi hooyadiis intuu madaxa ka fadhiisto iyo timaha uga saari jiray waxa ku jira iyo waxa maaragtay qanaca waxa fuula saxarada fuula waxa fuula ayuu boorka waxaas timaheedu saasuu u fagi jiray wayuطcimuhaa biyadihi gacantiisuuna ku quudin jiray afka ku siin jiray cuntada gacantiisu ku siin jiray walam yastafhimhaa kalaaman qatu ta'muru bihi weligiisna hadal ay amartay oo uu fahmi kari waayey ma uuyan weydiino maxaa tiri muuyan dhihin xataa yas'ala man cindaha ilaa uu weydiiyo dadka agtiisa oo yaqraahdo bacda an yakhruja maa araadat ummi hooyaday maxay doontay inuu markaa yidhaahdo maxamed ibn almunkadir wuxuu yidhi aniga walaalkay isna habeenkii baryey isagoo habeenkii oo dhan salaad u soo taagan aniguna waxaan baryey habeenkii oo dhan anigoo hooyaday lugaha u duugaya wamaa uxibu ana laylatii bilaylatihi ma aanan qaateen buu yidhi habeenkiisa in habeenkayga laygu bedelo ma aanan qaateen buu ma aanan qaateen kahmas wuxuu ahaa nin sheekha wuxuu yidhi waxuu ka shaqayn jiray dhoobada iyo dhagaxa si uu 2 dirham u soo kasbo 2 daano galabtii markay noqoto faakihu ku soo iibin jiray fruit markaasuu hooyadiis u keeni jiray haddii aan wadno ma dhammaynayno laakiin salafkii ridwaanullahi tabaaraka wa tacaala calayhim rag culimmadii ka mid a waxay ka reebtay inay cilmigii u safraan waxaa ka reebay ilaalin ay ilaashanayaan hooyada inay ag joogaan oo ay u baarinimo falaan haddaba waxaan leenahay walaalayaal zamanadan dambe waxaa soo baxday caaqnimaa soo baxday badan wax badan baa soo baxay haddii aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey waalidiin adduunka dul jooga waxaan leenahay ninkaasow jannaad haysataae jannadaasna waa adigu iska dayac meelaha aad ka raadinayso iyo meelaha fogfogooda adaysana ma jirtay jannadii waatan fa thamma aljanna hooyadaa lagu heday hoos taallaa ee ka faa'iidayso oo jannada ma shaqayso ama iska dayac adiga kuu taallaa haddii ay dhinteenna waxay noo yaal qaraabadoodiioo la xiriiriyo asxaabtoodiioo la xiriiriyo sadaqo badan oo laga bixiyo in loo duceeyo in wax awqaafa loo sameeyo masaajidda iyo ceelasha iyo meelaha iyo wax loogu daro in wax jaari ah oo aakhiro ku gaara in loo sameeyo walaalayaal baarinimadu waxaan kusoo khatimayaa waalidiinta waa baab weyn oo aad u ballaaran dadkuna moog yahay innaguna haafil ka nahay sida xaqiiqada ah aadaabtiisii iyo axkaamtiisiina wax badan aynaan ka ogeyn aynuna isaga malaynayno hadal afka laga yiri ee waxaan leenahay aan ku dadaalno jannadaas guryaha inoo joogta ama adduunka dul saaran nin walba inta goorigoor tahay jannadaas sidaad u qabsan lahayd raadso ninkay ka fog tahay hooyadiisa ama aabbihiisu ka fog yahayna si degdeg ah oo aan yacni lahayn tawaani dadka qaar baa waxay ku odhanayaan samarkaan fiirinaya sanadka dhammaan balaangaraynayaa inaan tago xisaabtaba ma ugu jirtaba waa miskiin waa qaafil way wuxuu kala ogyahay male qofkaas waa miskiin wey yaa miskiin wey qof dhintay wey qofkaas marka waxaan leenahay walaalayaal war jannadaas soconaysa oo agtiina taalla haddaad haysataanna ku fara adayga oo raadsada meeshay joogta ugu taga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaada hadday tageenna albaab aad kaga shaqaysataad haysataa sidaan sheegnay ka shaqayso ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu annagana baari naga dhigo duriyadeennana baari nooga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala naguna irsaaqo baarinimo
jannana ilaahay subxaana wa tacaala nagu irsaaqo wixii aan dembi galnay ama qusuur ama gaabis naga yimina ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga dhaafo ilaahayna inaan toobad ula soo noqonno oo maanta laga bilaabo waalidiinteen sida aan ku wadna aan ka dayno oo aan ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaano sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbi wasallam sheekh maxamed jazaaka allahu khayran khayra aljazaa insha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuugu daro miisaankaaga xasanaadka maalinta aysan jirin meel kale iyo wax kaloo loo noqda ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha kuugu daro muxaadaradii uu sheekhu inoo soo jeediyey oo ku saabsanayd ubaarinimada waalidka oo wada dhegaysanay insha allahu tacaala intaasay ku egtaa uu sheekhu idiin sheegay waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala inaan isku dayno mowduuca aan dhegaysanay wixii su-aale ka yimi laakiin waxaan idiin sheegay haddii si wacan muxaadarada u wada dhegaysanay su-aalaha soo qorteen qofkii soo qaray yacni uu soo qoray inuu ka heli karo iyada jawaabta waxaanay u badnaayeen su-aalaha soo qorteen laba jawaabood marka waxaan isleeyahay labadaba waxaa ka heshan muxaadarada gudaheeda oo ah tii uu sheekhu ugu dambeysay uu sheegay hadda ah waalidkay wuxuu joogaa waddankii soomaaliya anigu halkan aan joogaa sideen yeelaa iyo hadday dhinteen iyagana maxaan u sameeyaa marka waxaan u malaynayaa labadaba inuu sheekhu uu ku sheegay muxaadarada marka insha allahu tacaala waxaan uga gudbi doonaa su-aalaha kale ee u dhow kuwaas ee mowduucu uu leeyahay waxaa ka mid a sheekh su-aasha koowaad oon raba inaan halkan ka soo jeediyo iyadoon wakhtigu uusan badnayn waxaan joognaa halkan waxaanan ku haysanaa caruur waxaan isku daynaa inaan iyaga xanaanaynoon tarbiyayno laakiin waxaa noo muuqata inay adag tahay inaan ilmaha iyaga ka dhaadhacsiino siday annaga ha dhowto baariyaal noogu noqon lahaayeen maxaan samaynaa annagoo halkan joognaa habkee ama sidee uga dhaadhacsiinaa qiimaha uu waalidku leeyahay ilmaha halkan ku barbaaray ama ku dhashay الحمد لله شاعرك وحير بروا آباءكم تبركم أبناؤكم هدا دوني سو ilmaha inay baari ku noqdaan waxa tusisaa waalidka sida adigu baari aad ugu tahay waana si camaliya tarbiyadu u noqoto laakiin ilmahaagu hadaanu arag adigu sidaad baari waalidka ugu tahay sidee isagu hadhow baari kugu noqonay xaaladaasu hadhow way adkaanaysaa waxa weeye marka dhinacna waa wax sheegidoo waa nadariyad in la tuso dhinacna waxa weeye inuu ku arko waalidka adiga oo madaxa ka dhunkanaya adigoo fadhiga ku soo dhaweynaya adiga oo quudinaya adiga oo cuntada siinaya marka haddii ayaan waalidkiin la dhaweyn tarbiya camaliya in la helo weeye kaxaya oo waalidka u geeya kolalka qaarkood oo ha arkaan oo ha kula siyaartaan haddii ay suuragal tahay oo aanay surtoobi karin in meel lagu wada noolaado oo ummad shataad ku jirta aan nahay oo dhibaataysan oo qax iyo rafaad ku jirta cala alaqal waa in loo tago oo kolalka qaarkood la siyaarto adoo ilmihii wada oo waalidka aad tusiso oo uwahood iyo iyadood aad tusiso oo adigu sida aad ugu baarifalayso ay arkaan arrinkaas camaliga ah ayaa ugu wanaagsan tarbiyada wallahu aclam su-aasha kale xigta waxay leedahay isla mawduuca ku dhow sheekh iyamaan hormarinaa jihaadka fardulcaynka ah iyo ubaarinimada waalidka keebaan hormarinaa alxamdu lilah dad hadday muslin ah meel joogaan oo gaala ku soo duusho meeshaa dadka jooga weeye waxay ku noqonaysaa fardulcayn dadka meeshaa joogo markaasoo kale jihaadku markaa idin ma laha oo waalidka idinkiisu markaa shardi maaha hadduu fardulcayn noqdo jihaadku ama haddaanu markaa adiga farducayn kugu ahayn ama aad ka fog tahay meesha markaa dagaalku farducaynka ku yahay waalidka ayaa horeeya wallahu tacaala aclam
su-aashan kale waxay leedahay sheekh hooyaday ayaa waxay igula talinaysaa inaan soo geliyo waddanka ninka walaashay qaba oo aan ku soo geliyo guur ahaan inaan anigu uu ninkaygii yahay marka ma hooyaday baan ku adeecaa oo dumaashigay baan idhahdaa waa ninkaygii mise maxaan sameeyaa sheekh alxamdu lilaah waxaan sheegnay waalidka waa la adeecayaa amarkoodana waa la qaadanayaa wixii aan ahayn macsi ilaahi subxaanahu wa tacaala id laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq marka arrintaasuna waa arrin dee khilaafsan shareecada hadday shareecadii khilaafsan tahayna waalidka looguma hoggaansamayo laakiin waalidka inaad raalli geliso oo siyaabaha aad ku raalli gelinayso adoo aan amarkaa fulinayn ayaa lagaaga baahan yahay inaad iswaafajiso wallahu aclam su-aashan kale iyadana waxay ku soo noqonaysaa carruurta halkan joogta iyo waalidkooga iyo dadka ay bulshada ay la nool yihiin sheekh maxaan samaynaa carruurta halkan joogta haddii bulshadii ay la joogeen dadka aan yacni aan ahayn muslimiinta ay u jeedaan sida ku qoran maxaan samaynaa dadka ay uga xoog roonaadeen waalidkii ilmaha dhalay dadka aan muslimka ahayni maxaa la yeelayaa ma meeshooda iyagoo jooga lagu booqanayaa oo aad ka warhaynaysaa mise wax kale ayaa bannaan oo waxaan qaadanaa waa layga xoog roonaaday ilmahayga cid kalea la wareegtay oo wax aan samayn karayaa haba yaraatee ma jirto alxamdu lilah waxaan u malanayaa ilmaha iyo joogitaankooda dhulalkan iyo arrimahaas wax badanaan ka hadalnay oo iyada hadda ku soo celcelin uma baahna ilmaha waxa weeye si uu u barto yacni tarbiyadii islaamiga ahayd oo kaamilka ahayd waa inuu helaa bii'a islaamiya iyo environment islaamiya waa inuu helo weeye marka taasna waalidka ayaa mas-uulka ah oo waxa weeye mirihii aad beerto unbaad guranaysaa inaad adigu marka ku dadaasho ayaa loo baahan yahay sidaad bii'a islaamiya ilmaha u geen lahayd waana loo ka adkaadayna hadhow xujo keligeed ma noqonayso haddii aadan asbaabtii sharciga ahayd aadan qaadan oo aad wax ku badbaadin lahayd wallahu tacaala aclam labadii muxaadaree baxay su-aalaha ugu badan ama dadku soo codsanayaan maanaan hilmaamin oo ah dad badan oo xanuunsanaya qaar carruurta ka xanuunsanayaan qaar waalidkood ka xanuunsanayaan qaar dhibaato kala haysato dhammaantood waa ognahay mar walba oo muxaadaro yeelano ama culimmadu wada joogaan ama qaarkood joogaan way isu soo koobaynaa waayo aada ugama gaadhno inaan qof kasta tiisii si gaara u tilmaano laakiin sheekh maxamed dadku aad bay usoo codsanayaan dhibaatadaas caamka iyo mid gaara qof ka hayso oo xanuun u badan ilma hadday yihiin waalid hadday yihiin qof kaloo dhibaataysan mid oo camaliyad sugaya ama qaliin oo ilaahay ka rajeynaya ilaahay inuu u fududeeyo sheekh maxamed waxaan rabnaa insha allahu tacaala intaynaan gabagabayn su-aalaha waxaan rabaa inaan tan soo horreysiiyo oo dadka aadka u fara badan kuwo dibadda ka soo qortay kuwo joogaba inaad markaasi codsigaasi ducada aad sheekh kusoo dhawaatid alxamdu lilah jalsadeenna in sha allah waxaan ku khatimanaynaa ducadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa toosan nagu hanuuniyo ilaahay kuwa xanuunsan inuu ilaahay caafiyo kuwa maaragtay waddada ka lumay inuu ilaahay soo hanuuniyo ilaahay jidka ku soo celiyo ubadkeenna inuu ilaahay islaaxiyo durriyaddeenna inuu ilaahay islaaxiyo wiilasheenna iyo gabdhaheenna inuu ilaahay islaaxiyo guryaheenna iyo dumarkeenna iyo carruurteenna iyo raggeenna waa inuu ilaahay islaaxiyo ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteenba inuu hanuunka nagu irsaaqo jidkiisa toosanna ilaahay nagu sugo kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay nagu sugo ilaahay dembigeenna inuu dhaafo ilaahay dembigeenna iyo dembigii waalidiinteenba inuu dhaafo janno inuu ilaahay nagu kulmiyo ilaahay subxaana wa tacaala towbad saalixa inuu ilaahayna waafajiyo qabriyadeenna inuu ilaahay nuuriyo sakaraatulmowtkana inuu ilaahay noo fududayo ilaahay qabriyadana noo waasiciyo qabriyadana ilaahay aanu mugdi nagaga dhigin ilaahay noo nuuriyo siraadkana ilaahay nagu sugo maalinta qiyaamana kurbadeeda ilaahay naga faydo ilaahay kuwa harkiisa harsadana ilaahay naga dhigo janno kuwa u tallaabana inuu ilaahay naga dhigo dembigeen iyo dembiga waalidiintanba inuu ilaahay dhaafo muslimka meel kastoo joogaan inuu ilaahay guul iyo nasri siiyo ilaahay ruxmaha subxana wa tacaala rucbiga iyo dhibtana inuu ilaahay ka dulqaado waddamadooda inuu ilaahay xoreeyo ilaahay gumaysiga iyo dhibaatada inuu ka dulqaado meel kastoo ay joogaan ilaahay nasri iyo guul inuu siiyo muslimka meel kastoo ay joogaan gaaladana inuu ilaahay ku jabiyo meel kastoo ay joogaan sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbi wasallam
waxaan ka codsanayaa ma dhammaynina inay dhegaysataan insha allah yar baynoo dhiman marka aad u dhegaystay insha allahu tacaala intaanan gabagabayn waxaan rabaa inaan idiin sheego iclaanka jira oo ugu muhiimsan